dadweyne aad u tiro badan ayaa si la yaab leh deegaanka Qoyta ee gobolka Togdheer ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo. dadweynahan oo muujiyay taageerada luxdan ee xisbiga xaakimka kulmiye uu jiidahan ku leeyahay iyagoo bulshadaasina ay sameeyeen dowlad siyaasadeed oo fac weyn oo taageeranimo ku qotoma. salaadiin cuqaal aqoonyahan siyaasiyiin waxgarad mas'uuliyiin dhalinyaro haween ku hadlay bulshada reer Qoyta ayaa iftiimiyeen codkooda iyo cududoodaba ay ku dhisi doonaan murashaxa madaxweynaha xisbiga xaakimka kulmiye Muuse Biixi Cabdi. waana loo shaqaynaynaa waxaanu ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu ku guuleeyo waxaanu ka haal bixinaynaa hadalka la maqlay ee dadka cadwaanta ee soo shaxule ee reer Qoyta ahayn Qoyta ma ahayn dadkana ma ahayn waxa la Muuse ku soo dhawaada degmadaadii wax waliba raasamaal iyo ribxiba ilaahay taana talwa raasamaalkii hawsha inooga baahiyo waxa weeyaan inaynu guddiga diisha iskaga dhigno dadweynaha degmada Qoyta oo muujiyay runtii taageerada ay hayaan musharaxa xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi inay codka siinayaan inay dooranayaan aad iyo aad runtii ku mahadnaqaya. Qoyti waa kaydkii kulmiye, Qoyti waa magaalooyinkii halganka, Qoyti meel la sheegan karo oo xisbiga la sheegan karo maaha. waxay idin muujiseen in taageerayaasha xisbiga kulmiye tihiin sida u soo dhaweyseen hadhow kaarkana ugu rida inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka inaguna aynu diyaar u nahay inaynu dooranno goobtii laga qaadan jiray ducada waxa weeye madaxweyne kastoo guulaysanaya wuxuu soo maraa goobtan ducada ka sii qaata adigana maanta waa maalintii labaad ee aad lahayd ee caleentaada lagu shubayo weeye waxaan leenahay guul soo ma guulaysan aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa Muuse Biixi Cabdi فليتفضل 100% على أيدي المفتوحة والقلب المسرور. ورسيلا يا نودعي إلى هذا المرقة إنك روح الله مجاهد موسى بيحي عبدي إلى وحن بريء في إسلام بانهي صلاة الليل كانتو كذا وانتو عيسى ووردية إن إلهي موسى بيحي كبول أيو إلهي كبول أيو فرير Qoyta waxaan leeyahay horta maanta maaha maalintii codka maalinta siruu soo baxayaan waxa weeye waa maalinta codka war maalinta diyaar ma nahay maalinta iska geejinayna waa maalinta maankaarka doonta waa reer Qoyta maanta ilaa waxa la inagu ogaa soo dhaweyn waxa la inagu ogaa sooryo fiican waxa la inagu ogaa xisbiga la socona inuu soo baxo سمعت موسى بحديار ودين صاحت كما سينا هيلكا وهيلين كريسان قدوميا حسبك كلمية وحوية عودكا سينسان ومحاي مركا هيلكو نغنيا إنكار كلا قاعتو لا يهي عدي كلا وحكتنا دوا عد ريونيسا عدي علن كتاكتانا ومد ريونيسا عدي أفلقاتك كيستانا ومد ريونيسا وحكستو قلطان أو هلكا لغا سميي حاليو بوليس قرن بان ka bixinaya waxaan kaga xal bixin doona maalinta codka soo kulmiye ma tiidin qof kasta oo inaga mid ah deegaanka Qoyta waxaan ku dardaarmaynaa inuu kaarkiisa cod bixinta ugu rido kulmiye barasaabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan Ramax wasiir ku-xigeenka maaliyadda Cali Axmed Maxamed Cali Dhagoole wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani wasiirka howlaha guud Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere ayaa madasha hadal ka jeediyay tawciidka biyo inta taqada maalayo ee tulkay garab taagayay waa ku taagnay kursiga tigsanay warsiga kursi lagu helo war aytan iyo aflagaada lagu helo waxaan leeyahay kuwa dabada isaga ka sii wada ee ka quustay inay wax ka helayaan halkan ee rabay inay rabshada abuuraan walaalnimo ninkii dilay hadduu cabadin day waayo xaajooyinta duugoobay oo daalay baa iman waynu xisaabtami wax walba waa la sheegi war maanta Muuse waxaynu ku dooranaynaa waxaa ogtihiin in la doortay madaxweyne farmaajo nin la yiraahdo oo loo doortay dawladdan aynu jaarka nahay Soomaaliya
ninkaasi wuxuu aaminsan yahay feker la yidhaahdo in la sameeyo ciidamadii qalabka side isla markaana lala dagaalamo kuwa uu isagu ugu yeedho siduu aaminsan yahay ama uu afka ka dhawaajiyo gobollada waqooyi wuxuu ka codsaday UN-ka sida aragteen warqadda uu qoray ee ku jirta internetada waxa ku qoran in laga qaado cunaqabatayntii hubka wuxuu doonayaa inuu sameeyo ciidamo ku dhow 200,000 oo ciidamo ah kuwaasoo uu doonayo inuu ku soo celiyo waxa uu ugu yeedhay Soomaaliyadii hore waxaynu u baahannahay nin maanta ciidanka qalabka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhisa dhibaatada inaga soo socota koonfur ama uu hogaaminayo farmaajo wiilka yar ee falsafadihii adeerkiisita ninkii inaga caabilaha waynu maanta u baahannahay ninkaas waa kuwa saddexda musharax markaynu dib eegno oo muuse weeya annaga og ilaahayna og yahay aanu qabno bisha 14 Disembar ninka la daarin doona ee mujaahid Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyi oo ku wareejin doona madaxtinimada Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu yahay mujaahid Muuse Biixi Cabdi haddana waxaanu leenahay waa inaan la isdhigan waa in dhexda diisha la iskaga dhigaa waa in la dadaalaa waa in gabadha ka shaki ku jira loo sheegaa oo la yidhaahdaa war Soomaaliland waxay ku faantay haysaa Axmed Maxamed Siilaanyi iyo Muuse Biixi Cabdi waxay ku faanaan bay hayaan waxaasaanu soo bandhigaynaa war ninaan waxba hayn oo baarlamaanka 13 sanadood madax ka ahaa 13 sanadood buu ahaa ninka saddexaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland haya iska daa qoytee hadduu nagula xisaabtamayo wuxuu dalka ka qabtay diyaar baanu nahay maceeb baa horta waryaade Cabdiraxmaan waxaad leedahay halagula xisaabtamo maxaa Soomaaliland u qabatay markaanu mashruuc keenana imanka waa xig baarlamaankaaga xitaa saxay baa diiday ma baaday mujaahid Muuse Biixi Cabdi wuxuu og yahay maxaan ku idhaahday ilaahayna abuurtayna wuxuu og yahay cidna loo sharaxayn qoytay iyo hidusayna tahay meesha kirikirka ee Muuse aan cid ku qabsanin ilaa sheekh ilaa berbera war maana ahayn eega Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyi war ahdaar Muuse ku wareejin waxa la wixii Siilaanyi ka dhiman ilaahay uu wax dhameystiree iyo fekerka Muuse iyo Siilaanyi waa isku mid ah isagu ma dhamayn karaya marka mujaahidka aynu taxda u xirano maalintii halkan afartu yaayeen baan ku war halaha dhowrka halaade koraa badan lagu xidhay iyaan lagu dhilaabina markaynu horweynta soo deeyno ee afarta koona lagaga heeso ee boodaantu ka sanqadho adhow daad baa jiiri doona waxba ku dhilaabina horta ma tahay ma tahay deer waxa jooga hadmaan ka afeer midda waxaan leeyahay ragga aanay soqoonin reer burco deegaankana aanay soqoon reer togdheer aanay soqoonin horaa loo yidhi hataa taabanina reer togdheer maba taqaaniin dee waa hataa taabanina reer kulmiye maba taqaaniin halka ay ku dhammaato iyo difaaca iyo astaanta iyo tiir dhexaadku waa xisbiga kulmiye taynu ku raacnay ku wada soconay isbahaysiga inta leegay ummadda inta leegay wada socotaana wata waa xisbi xaakim 7 sano dalka soo hogaaminayay wuxuu noqday xisbiga ugu waxqabadka badan leh geedigii waxqabadka ee hogaamiyaha xisbiga aasaasaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyi geedigii waxqabadka inuu sii wadaynaa oo aynu dhameystiraynaa si wanaagsan bay noo soo dhaweeyeen si fiican bay noo soo dhaweeyeen codkii bay noogu ballan qaadeen kaadhadhkii bay si fiican u qaateen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka dhammaantoodna soo dhaweeyay maanta waxaynu joognaa qoyta shacabka reer qoyta ama reer togdheerba waa xisbiga kulmiye mar doorasho la galo oo aan codka number 1 aanu noqon xisbiga kulmiye ma jirto xisbiga kulmiye waxa ka soo baxay madaxweynaha maanta Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyi iyo dhalinyarada reer Somaliland haweenka oo codka ugu faraha badan leh xisbiga kulmiye siiyay hore u siiyay maantana uu la diyaara gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahadnaqay dadweynaha reer qoyta ee sida ballaaran u soo dhaweeyay wafdigiisa reer qoyta maanta waxaana tusteen maaha soo dhaweey waxaana tusteen kalgacal waxaana tusteen inaad tihiin dad xisbiga kulmiye inuu yahay hantidiina ma tihiin taageerayaal ma tihiin dad xisbiga soo dhaweynaya waxa muujiseen inuu xisbiga kulmiye yahay hantidiina oo qofkii saxar ku tuura aad 5 gacmood saaraysaan baa tusteen
maanta dadaalka iyo hawshaa gasheen iyo sida sheekh iyo shariif iyo taajir iyo aqoon-yahan iyo wiil yar iyo gabadh iyo cid waliba isugu timaadeen ee aa u muujiseen cuduudda iyo kulmiyo xoogga u haysaan farriin bay diraysaa qulubtiina waxaan ka akhriyayaa farriinta aadna faraysaan waxa weeye dalkan waxaanu ku faraynaa haddaad murashax iyo kulmiyo tihiin in lagu xukumo cadaalad in dalka hore loo mariyo farriintani waxaynu tusaysaa saaad maanta u muujiseen waxaadna faraysaan dalkani inuu noqdo dal lagala dagaalamo musuq maasuqa waxaad muujinaysaan oodna faraysaan ood xoog nagu faraysaan iyo wujuuhdiinna dalkan in shaqalaanta laga saaro waxaadna faraysaan in dalkan cadowgiisa looga sameeyo derbi adag iyo ciidan adag oo dhisa dhammaan farriimahaasoodaanu u qaadannay culimmada qaadiriyada ah iyo culimmada badan ee timidna waxayna faraysaa in diinta islaamka loo gargaaro haddii kulmiyo dawladda weyn lahay intaasoo farriimoodba waanu qaadannay aad iyo aad baa u mahadsantihiin gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi oo maalmihii u dambeeyey socdaal shaqo ku gaalabixinayay deegaanada hoos yimaada gobolka togdheer isagoo bulshadana ku wacyigelinayay qaadashada kaadhka codaynta doorashada madaxtooyada somalilan iyadoo bulshaha jiidaha uu maray wafdiga kulmiye si ballaadhan loogu soo dhoweeyey ridwaan caydiid ismaaciil akiid iyo axmed jaamac faarax telefishanka qaranka jamhuuriyadda somalilan deegaanka qoyta gobolka togdheer